shirkan oo muddo 10 cisho degmada Baran uga soconayay cuqaasha nabadoonnada iyo guurtida gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay xarunta wasaaradda haweenka ee degmada Baran. waxaana shirkan looga hadlayay amniga gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari. waxaana nabadoonnada cuqaasha iyo guurtida shirkaas uu Baran uga soconayay muddada 10 cisho ayaa maanta waxa ay bulshada magaalada Baran u soo bandhigeen go'aamadii iyo baaqyadii ay shirkaasi ka soo saareen. kadib xaalad colaadeed oo ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag oo uu sababay ciidamo maamulka Hargeysa ee isku magacaabay Somaliland soo geliyay deegaano kamida gobolka isla markaasna geystay weerar gardarro ah oo sababay dhimasho iyo dhaawacba oo ka dhacay Dabalaxagare maalin Talaado ah bisha Ramadaan oo ku beegnayd 22 bishii Shanaad 2019 iyo sidoo kale magaalooyinka Yubbe iyo Carmale. waxaa cuqaasha iyo waxgaradka warsangeli ee deegaanada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari isla qaateen in la isugu yimaado shir degdeg ah oo looga arinsanayo xaaladda cusub ee deegaanadaasi galeen sidii looga arinsan lahaa wax looga qaban lahaa isla markaasna loo wajahi lahaa. shirkaasi oo ka furmay magaalada Baran taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 6aad 2019 waxaa ka soo qayb galay ergo tiradoodu dhan tahay 60 ergey oo ay hogaaminayaan cuqaasha beeluhu. shirku markuu ansixiyay ajandihii ama qodobadii laga hadli lahaa waxaa shirku iska qabtay guddi farsamo oo ka kooban 15 xubnood waxayna iska dhex doorteen shir guddoon ka kooban 3 xubnood iyo xog hayn ka kooban sida oo kale 3 xubnood. falanqayn iyo lafagur lagu sameeyay qodobadii shirka looga hadlayay kadib waxaa la soo saaray go'aano iyo baaqiyo dhinacyo badan taabanaya waana sidan. kadib markay soo noqnoqotay sheegashada iyo ka tirsanaanta dalka iyo dadka ku dhaqan gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari maamulka Hargeysa ee isku magacaabay Somaliland waxaa shirku go'aamiyay in deegaanadaas iyo dadka ku nooli kuna dhaqani aanay ka mid ahayn waxna ku darsan cid ku matashaan aynay jirin maamulka isku magacaabay Somaliland. in dadka deegaanadaas ku nooli ee degani u taagan yihiin midnimada Soomaaliyeed iyo ilaalinteeda difaaca iyadoo laga duulayo colaadda iyo weerarada gardarrada ah ee ka imanaya maamulka Hargeysa ee jabhadaysan ee hurinaya fidnada colaadda nacaybka. waxaa shirku go'aamiyay inay u midoobaan dadka degan gobolada kor ku xusan difaaca dalkooda dadkooda iyo sharaftooda oo ah waajib wadaniyadeed oo ay tahay in la guto. si loo guto waajibka difaaca dalkeena deegaankeena iyo dalkeena waa in laga shaqeeyo hirgelinta maamulka iyo kala dambeynta laguna garab istaago si buuxda cidda hawlahaas loo igmaday. si ay u suura gasho gudashada difaaca deegaankeena dadkeena jiritaankeena iyo sharafteena waa in loo huraa dhaqaale cudud iyo ciidan waxaana shirku soo saaray guddiyo ka howlgala arrimahaas. shirku wuxuu go'aamiyay in midnimada dadka gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari ay tahay lama taabtaan isla markaana meel looga soo wada jeensado ciddii waxyeello ku ah. shirku wuxuu sidoo kale soo jeedinayaa baaqiyo dhinacyo badan taabanaya. baaqa koowaad iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii nabadaynta ee beelaha daris wadaagta ah ee gobolka Sanaag waxaan ugu baaqaynaa beelaha heshiiskaasi dhex maray inay meel uga soo wada jeestaan ilaalintiisa wixii wax u dhimayana ay ka hortagaan. baaqa labaad sida la og yahay colaadda gobolka ka soo cusboonaatay waxa sabab u ah ciidamada maamulka Hargeysa uu soo geliyay degmada Yubbe ee gobolka Sanaag taasoo waxgaradka gobolku hore uga digeen. haddaba waxaan mar labaad u sheegaynaa inay ciidamadooda kala baxaan deegaanadaas kuna celiyaan fadhiyadoodii si loo soo celiyo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka. baaqa saddexaad shirku wuxuu ugu baaqayaa maamulka Puntland ee Soomaaliyeed inuu guto waajibka ka saaran ilaalinta iyo difaaca dalka iyo dadka ku dhaqan gobolada Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari.
waxaa shirku ku baaqayaa maamulka Puntland ee Soomaaliyeed inuu guto waajibka ka saaran hirgelinta maamulka iyo kala dambeynta ee deegaanadaas kor ku xusan Sanaag, Highland iyo galbeedka gobolka Bari. baaqa afraad iyadoo dadka goboladan degaa dhul iyo dadba ay ka mid yihiin dawladda Soomaaliyeed una taagan yihiin midnimada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliya iyo golayaasheeda inay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan colaadda sokeeye ee maamulka Hargeysa ka hurinaya gobolka Sanaag iyadoo aamuska dawladda dhexe uu u muuqanayo inay qayb ka yihiin kala geynta iyo burburinta midnimada ummadda Soomaaliyeed. ugu dambayn iyadoo shirkani ahaa shir xaalad degdeg ku yimi ajandihiisuna koobnaa wax badanna aan lagu lafaguri karin wuxuu shirku ku baaqayaa in loo baahan yahay shirweyne caadi ah oo intaa ka ballaaran oo lagu qabyatiro wixii dhiman wabillahi tawfiiq. xasan cismaan al xasan TV-ga iyo Dowladda Puntland.